guud ahaan isbeddelka ganacsi ee ka jira Somaliland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa ah mid la jaan qaadaya geedi socodka kala duwan ee ay shacabku ugu jiraan maareynta qaab nololeedkooda. Ganacsiyada ka jira magaalada Hargeysa oo siyaabo kala duwan wax loogu iibiyo ayaa waxay leeyihiin heerar kala duwan sida ganacsiyo yaryar, kuwa raashinka iyo maciishada lagu iibiyo, iyo ganacsiyo iyagu dharka iyo alaabaha kala duwan laga helo. dukaamada iyo meheradaha agabka kala duwan lagu iibiyo ayaa waxay ku jiraan dhismayaal kala nooc ah. Cabdikariin Axmed Maxamed waa ganacsade Hargeysa ku nool. Waxa uu leeyahay ganacsi ka duwan kay inta badan dadku yaqaanaan. Waxa uu wax ku dul iibiyaa baabuur uu leeyahay kaasi oo ah mid habeenkiina la carraaba, subaxiina la soo galaha iyadoo alaabtuna gaariga u dul saaran tahay. maruu telefishinka Somali Channel ku booqday xarunta uu ku ganacsado oo ku taala bartamaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu nooga waramay sida uu ganacsigiisani iskugu bedelay mid gurgura iyo marxaladihii kala duwan ee ganacsigiisu soo maray. Cabdikariin ayaa xusay inay u habboon tahay ganacsatada yaryar oo uu sheegay in ay hore dawladda hoose uga wada rartay goobo ay ku wada ganacsan jireen inay meheradahooda ay ka dhigaan kuwa u shaqeeya qaabab kala duwan kuwaasi oo ku tilmaamay qaab dakhli ahaan u fiican. waxaan Somali Channel waxaan kan uga sheegay ganacsiga inaan wax markii ugu horeysay ganacsiga wuxuu ahaa mid soo jiitay mid badan marba marxalad ku soo maray marka hore dukaan weyn oo ballaaran buu ahaa kadib markii ay dawladdu sameysay bilicda magaalada ayaan u soo bedeshay inaan ku ganacsado dukaankayga gaarigayga waayo waxyaabo fara badan ayaa kamid ah ganacsiga sida macmacaanka waxyaabo waan gartay Cabdikariin waxaad iga warantaa goormaad ganacsigan aad noocan u bedeshineed noocan ka dhigtay wallahi waxaan u bedelay ganacsiga noocan inaan gaariga ku ganacsado muddo imika ku dhow ilaa iyo 8 bilood meelaha maxaa ku kalifinaad samaysid ganacsi ka duwan ka ganacsiga magaalada Hargeysa ama meheradaha magaalada Hargeysa mid ka duwan maxaa ku kalifinaad inaad abuurtid waayo waxa uu kalifay horta hadda eegto dadkeena inta badan waxay eegtaan waxay ku koobayeen ganacsi kaliya tan igu kaliftay waxa weeye waxyaabaha ku yar inay dadku sameeyaan macmacaankan iyo waxyaabaha yar ee fudud oo kale marka aanu waxaan aan doonayaa in aanan la mid noqon waxyaabaha ganacsatada oo aan sameeyo dhaqaale fara badan iyo waxyaabo fara badan oo ku cusub indhaha dadka. ganacsiga Cabdikariin oo hore u ahaa mid dhulyaala sida uu noo sheegay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinaya farqiga u dhaxeeya kii hore iyo kan uu haatan u bedelay ee ah inuu gaariga wax ku dul iibiyo soo jiitaan dadka waxaan dadka oran lahaa meel kaliya ku ururinay waxyaabo ganacsatada ballaariya waxyaabo kala duwan dadkiina u keenan koola marka ganacsiga ma noocan aad ku bilowday mise ganacsigaagu kolkii hore wuxuu aan jiray waji kale oo sanad u bedeshay in gaari wax ku dheeybis haade marba marxalad buu soo mariyay sawir guud aad aniga sameeyo marka hore wuxuu ahaa in aan anigu marka hore aan ku meelaha yar oo naqanay wadooyinka aan iska dhigto waxyaabo yar oo naqan aan gacantayda ku kaxaysan karo kadib marba marxalad baan soo doonay markii dambe dukaan ma ka dhigtay imikana waxaan u bedelay in gaariga ku dhex ganacsado marka meheradaha kale xagga faa'iidada maxaad kaga duwan tahay meheradahan caadiga ee magaalada ka dhisan ee iyagu aan gawaarida ahayn ama guryaha ah ayaa adigoo gaar wax ku dhixin maxaa farqiga idin dhaxay xagga ganacsiga wallahi waxa farqiyo noo dhaxeeya markii hore waxyaabaha kiro oo kale waan ka maarmaya waxyaabo dhaqaale fara badan oo markii hore ugu bixi jiray ugu baxo imiga dukaan gaarigaygi baan dukaan ka dhex dhigtay halkaan waxyaabo badan baan ayaan ka faa'iiday. dawladaha hoose ee Somaliland oo inta badan qaada ololayaal dhul banayn ah kaasi oo ay khasaare laxaad leh ka sheegtaan ganacsatada rayidka ahi ayaa waxa uu Cabdikariin ku doodayaa in uu isagu u arko mid ka nasiib badan ganacsatada kale ee dhigiis ah. Cabdikariin oo ganacsigiisu yahay mid ka dhex abuuran baabuur kaasi oo eeg qaab guri ayaa waxaanu weydiinay inuu qorshaha ku darsaday koronto markaasi ugu dhaxneed gaariga inay khatar ku keeni karto waqtiyada qaar. dabcan waayo markii dawladda samiga meesha oo kala ay timaado dad kale waxa kala diinta dadku isku yaaciyaan gaariga waan staarin oo ka xasinaya waa gaari baarki taagan oo marka ay yiraahdaan dhaqaaji waan iska dhaqaajinaya wallahi gaariga dabcan ma halkii meheradda markii la ku taala ma garanaysa kadib markii ay bilicda caasimadda ay bilaabeen dawladda hoose in ay banayso barti baarkinka guma gaadhigto subaxdiina way soo istaagaa habeenkiina waan ka dhaqaaqaa insha Allah waan ka taxadiraa si aan macaamiisheeda aan isku waayin waan ka taxadiraa markasta checking baa ku sameeyay gaarigiisa aan marnaba u xumaanba
khatarteeda way keeni kartaa horta waad gan kartaa gaari oo waliba batrool hadana dabaysan waa aad baan taxadiraa marba hadan cilad yar dareemo waxaan la hadlaa dad cid ku shaqaale dabka isla daqiiqadaas ka gaadhay insha Allah laakiin waxba wali kuma arag insha Allah ilaahay damkiisa meheradaha noocan ah ayaan noqonaynin tii ugu horeysay ee magaalada Hargeysa laga aasaso balse waxaa jira meherad iyadoo muddo ka dhex shaqeynaysa magaalada Hargeysa taasi oo lagu iibiyo isla baabuur xambaarsan qalabkii dukaanka la dhigi lahaa Dr. Farxaan Muuse oo ah aasaasaha meheradan kale ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlaya waxyaabaha uu ku iibiyo meheradani Farxaan waxaad ka warantaa kalka hore halkan waxa weeyaan qalabyo kala duwan oo u badan adigu dareere waxyaabo dareere ah marka bal faahfaahin naga sii waxyaabahan aad ku iibinaysid meherada walaal waxa weeyaan faahfaahin ka sheego waxa weeyaan horta malabban iibin jiro aan ka bilaabay malabka qocaagadaha ku yar ku jira oo buuraha laga keenay ilaa Ceerigaabo ilaa Golis ilaa meelahaas oo ilaa Ethiopia xitaa qaar baa ii yaala marka waan keenaa xagga ma ku iibiyaa marka imika hawshii waan sii kordhiyay Dr. Farxaan oo xusay in ay dadweynaha reer Hargeysa ay ku noqotay wax cusub oo la yaab leh markii uu bilaabay muddo ka hor ganacsiga noocan ah ayaa waxa uu soo qaatay caqabadihii kala duwanaa ee soo waajahay bilowgii ganacsigiisa Dr. Farxaan oo haatan iibiya waxyaabo kala duwan ayaa waxa uu xusay in ay yihiin kuwa laga soo dheegay xayawaano ka tirsan kuwa badda ku nool iyo qaar barigaba ku nool ayaa waxa uu iftiiminayaa meelaha looga keeno isagoo intaasina raaciyay in ay yihiin waxyaabahan uu iibiya kuwa loo isticmaali karo qaab dawo oo ku tilmaamay in ay dawo ka yihiin xanuuno tiro badan waxaan keenay iminka markan dadweynihii arkay baahidii ay u baahan yihiin kiniinkan dhibay ee farmasiiga qaarkood lagu iibinaya dalka la keenaya dhacay ayaan dabeetaan eegay dadweynihii aan u keenay wax dawo tayo leh oo badda ka soo baxda oo gaasteriga iyo babaasiirta iyo xiiqda iyo gooriyaanka iyo macaanka xitaa iyo dhiikarka iyo typhoidka xitaa ka dawaa hansi gudagale ee waxa weeyaan shark baa la yiraahdaa waa libaax badeed waa ka sawirkiisu xagaad ku arkaysaan libaaxa baddu waa ka kalluun weeyaan waxa laga soo saaraa mindhicirkiisa la soo saaraa cadceedda loo dhigaa cadceedda marka loo dhiro waa la qalajiyaa dheecaan buu iska soo maha cod liver oil ayaa la yiraahdaa cod liver oil kaas wuxuu u fiican yahay gaasteriga iyo typhoidka iyo babaasiirta intaas uu fiican yahay qofku uu cunaya maxaa keenay gaasteriga waxa weeyaan daqiiqdan aan tayada lahayn dalka la soo gelinayo ee dhacday iyo waxyaabo sidaas ay ka saabsan tahay gaasteriga keena ee dhanaanka habeenkii dumarku inoo qooshayaan ayaa dhacday marka taas waa taa qubada hadan u tagno qubaduna waxa weeyaan diin ceelaadka baddu ku dhex jira qubada la yiraahdaa subaga diinka sea turtles baa ingiriisiga la yiraahdaa wuxuu u fiican yahay xiiqda iyo rheumatismka qofku hayo xaggii diri dhaba loo tagi jiray biyo kulul iyo waxa la soo dhigi jiray ma jirto waxaad ismarinaysaa waxaad cabaysaa qubadaas oo u fiican tahay qubadu waxay u fiican tahay xiiqda iyo rheumatismka intaas oo u fiican tahay gorayadana waan hayaa subaga gorayaduna waxay u fiican tahay waa la ismarinayaa jirka la mariyaa marka rheumatismka xididada internal iyo disinternal weeyaan xagga boneskana way u fiican tahay oo xagga qofku markuu yara weynaado oo in yara weynaadona da'da uu yara gaarona rheumatism baa qofka ku helaa wallahi way jirtay taas bari Axmed Saciid ciga xitaa ay wareystay oo inta ay way jirto xitaa madaxtooyada agteeda aan ku iibin jiray ayaa qaraxii waatiidii aad ogeedeen qaraxii dhacay muxuu ahaa barigii daahir riyaado dalka haystay iyo waxyaabo sidaas amigu Soomaalidu waa iska dacaayad badan tahay baa la yiri baa ninkan baa ka dambeeyay waxyaabo fara badan ayaa yani waxa iga soo gashay waayo waxaanay arkin walaalo baabuur dabadii ku dhex iibi malab aanan lagu iibin baabuur oo ninkan Mareykanka ka yimi ee baabuurka hadba kala bedelaya ee hadba gees fariisanaya muxuu waxa weeyaan Ilaahay baa kula qabta walaal arin hadii aad la timaadid wax arsaaq Ilaahay isku xidhid aad hoos ahaan ka soo bilaabtid Ilaahay baa Ilaahay iyo sare iyo meel kastaba ku geyn karayo oo uu ku barakeyn karaa marka waata imika aad aragteen waxyaabo badan waa laygu yiri laakiin musaamax kariim baa la yiri ugu dambeyntii waxaan kala weydiiyay Cabdikariin iyo Dr. Farxaan su'aashan ah muxuu yahay qorshahaaga mustaqbaleed ku saabsan dhanka ganacsigaaga haday noqoto dhinaca horumarinta iyo haday noqoto inaad waxyaabo kale ku bedesho
إن شاء الله ولا الهرت ولا الإله هرت ملب وها ما أنت وعد دركتان قبل مريا إلى يقريو إلى اللي بحبدين مركا آد في عين هاي مركا ولا الوحور مرنت ده إلههم باقران حق إن بريتو ديمان إن النولان دونو لكن إلهي من اسكحره والبركة على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله waxaan doonayaa inaan meherad caadi karisto sida dadka ganacsayaasha u ganacsadaan oo kale in meherad caadi ka soo jeestaan doonaa diilaadhad